aniga haddaan qiyaastay oo aan qiyaasay horta eliminate groupka la dhaho iyo waxaas la sheego sababtaan kuu sheegayaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن أو ونكسن داوذي الميل كستواد أدونك كجوكتان هل كان نقد داونيسان وورباهنتا بروهان جنال فيسبوك يوليبا يوتيوب قضبضا انت وبرنامج كينا السعودة وحاكمت وقونا واوين شرم بوي oo ka hadlay qolyaha loo yaqaano maasoniyada ee caabuda sheedaanka. Sharma Boy ayaa sheegay arrin lama filaan ku noqotay dhammaan shacabka Soomaaliyeed. sidoo kalena Sharma ayaa waxa uu sheegay in uu show ku qaban doono magaalada Gaalkacyo. sidoo kale arrimaheena iyo Fariixa Sayid ayaa ugu dambeyn waxa ay ka hadleen xiriirkooda. gabar iyo wiil yar oo xalay lagu dilay magaalada Boosaaso. haddaba waxaan idin haynaa xog faahfaahsan oo ku saabsan dilkaas iyo weliba sababta uu ku bilowday. qodobadaas iyo qodobo kale ayaa inta uu barnaamijkeena socdo ku daawan doontaan. ugu horeyntiina aan ku bilowna fanaanka aadka u daada yar sanadihii ugu dambeeyay la loolin waayay ama loo bagac dhigi waayay. Sharma Boy ayaa waxa uu sheegay qodobo xasaasi ah. Sharma Boy ayaa waxa uu ka hadlay kooxdan loo yaqaano maasoniyada iyo weliba dhalinyarada la sheegayo maalmahan in ay ka tirsanaayeen. Sharma ayaa waxa uu sheegay in markii ugu horeysay ee uu ka hadlo qolyahan maasoniyada ay tahay Sharma Boy oo ku sugan caasimadda maamulka Puntland. haddaba waa kana Sharma Boy oo ka hadlaya halka uu showga ciida ku qabanayo iyo weliba kooxdan loo yaqaan maasoniyada. sababtaan kuu sheegayaa aniga haddaan qiyaastay oo aan qiyaasay horta eliminate groupka la dhaho iyo waxaas la sheego ani ilaa haddeertaan maadaama aan leefna ula kulmin leefna aan u arag waxay qabtaanna aan garanaynin waxayna aan sheegi karin waxaa u aqaanaa sida ma taqaanaa dhagdheer oo kaleeto. dhagdheer miyaan maqalne ma aragne laakiin waa sheeko jirtaa macnaha waxaan ka wadanaa mara life ma u aragne waa maqalne le taasoo kaleeto agteeda ka tahay iyo wiilwaal iyo juxa iyo sheekooyinka noocaas camal agteeda ka tahay horta marka ugu horeyso. marka labaad anuu maba aqooninba manan garanaynin dadkan dhalinyaradeenna laakiin qofkii markaas la yimaada dadkaas waa saas soo dhahay ya qofkaas unbaa aan aaminsanahay raba inuu naga gado dadeena aan aqoon anaga wax qiimana inaan u helin inaan bar rabo macnaa asiga inuu bar rabo marka waxaan u sheegayaa dadka Soomaaliyeed ama dhalinyarada waxaas anaga agteena qashan inay ka yihiin shakhsiyan markii laga soo dad sheedaan caabudo nagama dhalan mana lihin mana rajayn doono insha Allah wixii sheedaan caabudo ayaga u taalaa. sheedaan ani kala bixino ilaahay ku caasiyaan buu arkaabo ma garatay. marka intaas aan uga baxayaa dhalinyarada waxaan leeyahay hal isku kala kacsado ujeeda kala kicinta ma garateen laakiin wixii ha ka dhigin wax oo xaqiiqo waxa waaye calaamadan fiiri hadda anisaan dhaa deertaan hadda dando ma ugu jira ilmanaytiga ay miya gacana wajiga gelina wala wajiga gacanta ka geliyo inta ka soo bixina filna ee keenabe gorma ciile صاحب معانا أنا بينكم الشيء قاعد مركان شيخ ناخذ اللي عيله يقرش سنتهاي قرشي وقوي واعي إن شاء الله ووري البرنامج كأنه هالمركز واحد لا ربي حلقة نقطة بريء ساعد به إن شاء الله عيد مانك عيد هم هذين نقطة مانك واد إيمانك كلبات يا إيمانك ست حد وإحنا نخطبه ها وسود جندونا لكن برنامج إن شاء الله حرجينا إن Gaalkacyo ku qabano ciidan barnaamij waliba Cawaale Stadium waliba xilli galabnimo ah maalinimo ah hadoo alle idmo iyo habeenimo kee suura gashaa insha Allah laakiin ciida waa aniga iyo magaaladeedii khaaska ahayd aan jeclaa hadee waxaan leeyahay Soomaali weyn iyo tolkaba waa idin soo socdaa maalinkaas ciida ah hadoo alle idmo waa inuu iyo Gaalkacyo iyo ma soconaa waa ka wadanaa ma soconaa maalinka ciida hadoo alle idmo waxaan idin leeyahay sidaas iyo
waxaan idinkaga tagaynaa nabad geliyo. 3 sano iyo bar ayaa laga joogaa markii Fartuun Birimo oo ah fanaanad aad u wada garanaysaan deegaan ahaanna ka soo jeeda magaalada Gaalkacyo ay tiri waxaan ku qabsanayaa showgaas oo ay ishortaag ku sameeyeen culimada magaalada Gaalkacyo ayaa waxaa ka dhashay khasaare iskugu jira naf iyo maal. sidoo kale halkaasi waxaa ku dhintay dhowr ruux oo iskugu jiray kuwii weerarka soo qaaday iyo kuwii taageersanaa in showga uu dhaco. Sharma Boy waxaa laga yaabaa in aysan suurtagal u ahayn in showgaasi Gaalkacyo uu ku qabsado maxaa yeelay magaalada Gaalkacyo labadeeda gidi waxaa awoodda ugu badan haysta culimada, sidoo kalena ma ogolaan doonaan in halkaasi show uu ka dhaco. waxaa laga yaabaaba in maalmaha soo socda aad baraha bulshada ka aragtaan hadalka culimadaas. dhinaca kale xalay ayay ahayd markii aan baahinay xiriir miyaa ka dhaxeeya arrimaheena iyo waliba Fariixa Sayid. inta badan hadaladii aan xalay idin sheegay ayaa suurtagal noqday inkastoo aan la isku haleyn karin wax walba oo baraha bulshada laga sheego. laba muuqaal oo ay barahooda bulshada waliba YouTube-ka ay soo kala dhigeen ayaa inta ugu badan waxa xoogga ay ku saarayeen xiriir miyaa naga dhaxeeya. haddaba waa tana ugu horeen Fariixa Sayid oo ka hadlaysa, sidoo kale waa kana arrimaheena oo asna ka hadlaya. su'aasha sadaan jawaabteeda u raadiyo muraadinebo degdeg music drama kato arrimaheena waa wiil walaalkayga ah, waa wiil aan asxaab ilaahi nahay, maasha Allah, wanaag iyo ixtiraam intaba naga dhaxeeyaan. dadka jecel inay ogaadaan waxa naga dhaxeeya ani qaybteeda waa sheegay qaybtaada la mariyaa macna loo jawaab ma kala noqon damay laakiin afkaaga laga maqlo macna jawaabtu ka dhamaatay ma waad wax ku harsayin fikir waxa ma kugu dadambayaan raad may okay say sheegto waa walaashay insha Allah anigana halkan hadii ma aragtay aad si buuxda aan ugu jawaabo maadaama la dhaasay wada jir inaan ugu jawaabeeno aan go'aan ay qaadatay iyada go'aanka ma ol qaataan markaas way ila tashatay anigana waxa ku dhahay waa wada qaadanay go'aanka waa wada qaadanay si wada jirna ugu jawaabno maadaama amal ay jawaabteeda bixisay anigana jawaab diyaar qo maradina okay dhaadheer sirtu dira aniga waa walaasheeda igu weyn igu qaali ah muddo yar oo kooban aan isna qaanaa waxaan isku naqaanaa wada shaqeyn iyo garab istaag iyo isdhiirgelin iyo iscaawin soo marka taa macnaheedu ma noqon karto labada qof yani qalbiyadooda ilaaha kala daalacanayo dadku yani wax bay qeexi karaan ama wax bay qiyaasi karaan fikir bay leeyihiin qof walba fikirkiisa ma dhihi karno wuu ku khaldan yahay ama ku saxsan yahay qof walba dareenka ku jiro iyo aragtida ma aragtay wuxuu u tabinayo ama u sawiran uu ka falcelinayo uu ka hadli karaa amal waxaan ahay walaalkeed ka weyn iyadana waxay tahay walaashay iga yar mar kasta aan garab taaganahay. dadka Soomaaliyeed ama shacabka Soomaaliyeed ayaa waxa ay weligoodba dhaqan ahaan lahaayeen haddii aan u laabto waagii filmaanta Hindiga la xiisan jiray berigaasi waxaa jirtay Sheeruqaan iyo waliba Raani haddii filim isla jiraan Soomaalida markaasi oo aad u yaraa internetka la isticmaalo ayaa waxa ay ku sheekeysan jireen ama ciyalka xaafad ay ku sheekeysan jireenba labadooda way isjecel yihiin. waxa arkaysaa dad daliil ahaan u soo qaadanaya marka ay filimka jilayaan isma fiirin karaan waxayba iloobeenba in waxaan ay daawanayaan uu yahay filim. sidoo kale caawa arrimaheena iyo Fariixa ayaa waxaa lagu leeyahay car waa kaasaae hal mar isfiiriya ama daqiiqada yar isfiiriya. dabcan labada qof hadday isfiiriyaan oo aysan wax badan isla sii joogin xogaa waxaa dhici kara xishood haba u badnaadee dhanka Fariixa maadaama ay tahay qof dumar ah waxaana u sababeynayaa xishoodka markii loo qaybiyo 15 qayb kamida waxaa la siiyay dumarka taasi oo micnaheedu uu yahay in 15 haduu ahaa 14 kamid xishoodkaas dumarka la siiyay halka soo harana ay qaateen ragga. ugu dambeyntiina dhacdo aad argagax leh ayaa xalay waxa ay ka dhacday magaalada Boosaaso kadib markii nin ku hubeysna qoriga loo yaqaan AKM-ka uu xabadeeyay meel jaadka uu ku soo dago laguna gado. xilligaas uu weerarka ninka uu ku soo qaaday goobta ayaa waxa ay ahayd 2 habeenimo ama 8 saac oo habeenimo. haddaba waa kana maamulka Puntland oo ka hadlaya soo qabashadii ninka. waxay ku dhacday dad masaakiin oo hurday waxa ku dhintay gabar iyo wiil yar oo isu habar yara ah waxa u geystay dad
iyaguna kusoo talagalay kulley inay geystaan falkaas gaarigu 8 saac oo habeenimo labadii dambe buu soo galay magaalada milxuu ka yimi saddexdii dambeetana shilkaa dhacay dhibtaa dhacday 5:10 waxaa lagu guuleystay qabashadooda marka waxaan oran karaa kulley dee falku waa dhacaya laakiin waxaa muhiim ah sida wax looga qabanayo marka mar hadday xiran yihiin iyagana sharciga ay sugayaan dadkii kalena waa la aastay waxa asaasiyada hadda haatan taagan ma ay jiraan intii dhimatana Allah u naxariistaan leenahay inta wax geysatana dee sharciga ay sugayaan daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa